Assalaamu calaykum. Maalmaha waxaa bulshada ka arkayay social mediahan ka arkay wiil dhahayo waxaa laga dhaadhacshay inaad doqon ahaa. Waa runtiis qisooyin badan baan hayaa oo caruur markay yaryar yihiin wax laga dhaadhacshay oo sida loogu celcelinayo isku maleeyaan hadda markay weynaadeenna ay ogaadeen dhaawac badan bay u geysadeen. Waxaa jiro gabar oo dhahday markaa yaraa sidaa lii dhahayo dhagoosho dhagana way qabtaaya waxay isku malaysay inay dhagool tahay ilaa markay weynaatay ay ogaatay inay dhagool ahayn. Okay, yacni wax way maqli jirta laakiin dhagooshaa loo dhahay dhagool isku malaysay. Marka wiil kale asna waxaa jiro indhoolo ahaa weligiis indhoolaa taa waalidkiis looma sheego dadkiis uma sheego asaga marka indhoolanimada wuxuu u maleynaya maba ogaanba indhoolanimo iyo indhaala qabaa iyo different maba ogaanba wax labadaas u dhaxeeya dadka dhan inay sidaas yihiin u maleynayo. Marka soo iska ciyaaraya ba ciyaal ku soocayeen sidaasuu ku ogaaday. Marka waxaa weeye waalidka hadalladiisa meel foogay ku dhacaan. Anaga haddaa waalid lahna markaa xanaaqno waxaa rabnaa iska sheegno. Sababtaasaan idiin leeyahay markaa xanaaqdeen bursusku dhagsado biyo cab biyo qabow cab waxa la samee marka laakiin hal erey adhahad carruurtaa caasi ka dhigi karto hal erey adhahad carruurtaada god ku ridi karto hal erey adhahad carruurtaa mustaqbal wanaagsan iyo dad muhiim ah ka dhigi karto. Marka erayadeena ka fiirsano yaan ku dhihin haddii hal mar ama laba mar anako xanaaq naga soo fakato se u sheego bilaadan aan ahna waa ka xumahay iga raali noqo hadalkaas inaan saas ku dhahno weligaa saas ma dhahda waalida adaa ku weydiina skaamanka igu soo kor weligaa carruurtaada intaa ka qaldoontay ma dhahda waa kaa qaldanaaye iga raali noqo sidee dareemi lahayd waalidkaada adiga saas ku dhahay. Marka insha Allah ii soo qor haddaa weligaa dhahda carruurtaada ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan weligaa carruurtaada ma dhahda qaladkaas iga dhacay bilaadan baa iga raali noqo. Assalaamu calaykum.